بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود الملبو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Gorfaynta Televisionka RTN oo si toos ah kaga imaanaya studio-hayga magaalada Nairobi waxaana barnaamijka toddobaadkan diiradda ku saari doonaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud xarun waa maamulka Galmudug oo ay ku shirsan yihiin madaxda ugu sareysa ee dalka iyo kuwa dawlad goboleedyada wararka aanu ka helayno ila warada muhiim ah oo ku sugan Dhuusamareeb ayaana sheegaya in madaxda dawlad goboleedyadu iyo kuwa dawladda federaalku wali ku kala aragtiduwan yihiin hanaanka doorashada sidii horeba u socotay ama u jirtay qaar kamid ah ayaana qaba in si guud awoodda soo xulista baarlamaanka loogu soo celiyo gacanta gobolada iyo inta ka horeysa oo ah in laga wada hadlo khilaafyada jira waxaana shalay halkaas ka degay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka maamul goboleedyada qaarna ay qabaan baaliyeen in meel dhaxal la isugu yimaado si loogu dhaqaaqo ama looga dhaqaaqo qiriga qirta la isla taagan yahay maamulada qaar ayaana gorgortan siyaasadeed oo madaxweynaadkooda la xiriira oo mudnaanta koobaad uu yahay halka kuwa qaarna sida Puntland ay kamid tahay federaalku ay isku hayaan mashaariicda horumarineed ee lagaga hor istaagay khilaafka dartii loo fasaxo taas oo muujinaysa in mar kale la kala aragti duwanaanta u dhaxaysa ee jaalayaasha gobolada ee Dhuusamareeb usbuucyada badan ku shirsan haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ee la isweydiinayo waxa weeye maxaa xal ah oo ka soo bixi kara shirkan mase lagu heshiin karaa xaaladda kala guurka ah ee Soomaaliya waqtigan ay ku sugan tahay iyo doorashada socota barnaamijka toddobaadkan ee Gorfaynta waxa ay ugu martay haddii aan dhinacan ku bilaabo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika sidoo kale waxa halkan igula sugan wasiir hore Xuseen Cabdi Xalane oo laba jeer soo noqday wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya waxaan wax ka weydiin doonaa bal xaaladda guud ee wadanka iyo khilaafaadka hadda jira iyo shirkan Dhuusamareeb waxa uu kaga duwan yahay shirarka kale ee hore ay u yeelan jireen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka aan ku bilaabo Dr. Cabdiwahaab marka hore Dr. soo dhawow oo ku faraxsanahay waqtigaaga iyo juhdiga aad labadiinaba barnaamijka ku soo bixiseen su'aasha isweydiinta wadan waxay tahay shirkan magaalada Dhuusamareeb madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore iyadoo aan ognahay in maamul goboleedyadu ay diidaan in ay tagaan Muqdisho oo madaxweynuhu ku casuumo horta inta badan markay doorasho soo dhawaato dalkan oo Soomaaliya isjiid far badan baa dhaca hadda waxa la isku haysto Soomaalida waxay taagantahay laba daramin dooro mid waxa weeyaan mid ugu horeys waxa weeyaan dawlad macnaha baarlamaan adduunku aqoonsan yahay oo xiriir jab ku imaaday ayaa wuxuu mariyay yaani in Soomaaliya ay gali doonto doorasho hal cod ay hal qof ah iyo maamul goboleed ayagana doonayo inay macnaha wax ka bedelaan oo yaani nidaamkan doorashada dadban la yiraahdo in lagu soo dalka lagu soo dabaalo ay dawladdu ku eedeynayaan maadaama 3 sano bar dawladdu ay soo jirtay waxna ay qaban laadahay dawladii yaani in hadda ku qaban karin hal sano yaani doorasho cod iyo qof ah inay ayagana aaminsan yihiin marka meesha waxa taala dadka Soomaaliyeed waxa hortaala marka waxa weeyaan waa dhibaato waa laba waxa waxay galeen between hard place and rock yaani dhagax adag iyo meel adag u dhaxeeyaan marka haddii marka nimanka maamul goboleedyada naftikooda oo runtii yaani waxay qaadanayaan waxa meesha ka baxay awoodii meena baarlamaanka rabay inay ay naftooda qaataan oo macnaha ay wadankii macnaha yaani dhahan wadanka doorashada banu galaya taa marka ay doonaan hadii lagu baaqana meesha waxa ka baxaysa marka awoodii baarlamaanka way ka baxaysaa nidaamkii xisbiyada badna xisbiyadan madasha ay leeyihiin ayagana awoodooda meesha way ka baxaysaa oo macnaha yaani waxa weeyaan nidaamkii xisbiyada faraha badna hadda Sacuudiga ama xisbiyada madasha la oran jiray ayaga naftikooda awoodooda meesha way ka baxaysaa oo macnaha maasha hadda waxa gorgortamay dawladii executive-ka iyo nimanka maamul goboleedyada ayaa marka gorgortamaya waxa marka banaanka taagan baarlamaanka banaanka taagan oo sharci ahaa oo sharci diinta loogu talagalay waxa kale ay banaanka taagan madasha xisbiyada badan xisbiyada madasha ayagana banaanka taagan yihiin marka waxa weey martaba markay ku noqonayaan wax meesha ka socda marka waxaan moodaa marka dadka wax bartay Soomaalida waxa marka la gudboon laba shay weeyaan mid waxa weeyaan in yaani baarlamaanka la ixtiraamo maadaama baarlamaanka mudiisu yar yahay xilli yarna uu haray ilaa 6 bilood 7 bilood waxa haray meelaas ayaa hortay laakiin hadda waa nusuus jiro waaye oo lagu ixtiraamo ay mudan tahay baarlamaanka aqalka sare aqalka hoosena waxa ku jiro dhammaan dad laga soo doortay gobolada maartay ama Puntland ha noqoto ama Jubaland ha noqoto ama South West ha noqoto ama Hirshabelle ha noqoto ama Galmudug ha noqdo yaani waxa weeye dadka baarlamaanka ku jiro goboladaas ay marka ka imaadeen marka baarlamaanka awoodiisa markay rabaan inay xayoobiyaan marka gobolada ay rabaan inay xayoobiyaan oo macna baarlamaanka ay leeyihiin macna waxa weeye wuxuu noqday institution executive kala macna dawladda ay leedahay noqday ay ku eedeynayaan kuwan waxay leeyihiin maya hal ixtiraam institution baarlamaanka la ixtiraamo caalamka aqoonsan xariijim haduu ku yimaado asana macna waxa weeyaan yani hal la aqbalo macna baarlamaanku wuxuu bariyay kuwan waxay leeyihiin maya doorashada dad bana la galayaa
doorasho dadban baa la gelayaa doorasho cod qof suurtagal maahan dowladdan lagama rajeynayo inay gaarsiisa baarlamaankan lagama rajeynayo inuu gaarsiiya laga rajeynayo marka guud ahaan marka waxaa loo baahan yahay inay wax loo yaqaana compromise inay sameeyaan meel dhexe la isugu yimaado dalkan la samata bixiyo taasaa muhiima maarta sidoo kale xuseen cabdi xalane oo asna dhinacayga bidix fadhiyaan siinaya mudan wasiir maxay kula tahay inuu shirkan uga duwan yahay shirarkii hore ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wardada xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu in doorki ma fiicnayn marka maba dhicinba shirarkii ahayd inay dhacaan ma dhicinba sababtoo xiriirkaa xumaa darteed nimankan marka reer galmudug runtii way isxilqaameen waxay gogol bay dhigeen waana ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan dalka isagoo waxba heshiis lagu ahayn baa waqtigii uu dhammaanayaa xukuumadda hadda jirta marka gogashan nimanka dhigayna actually waxay ahaayeen niman lagu tirinayo xagga federaalka inay u dhow yihiin filla soomaaliya u dhow yihiin in xamar la tegi waayo waxaa keenay aamin daro u dhaxaysa xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha maamul goboleedyada ka jira oon qaarkood xitaa amnigooda ku aamini karaynin xamar nimankan marka dhexdhexaad inkastoo haddii dhinac loo badinayay dhinaca u dhawaayeen xukuumadda federaalka bay ahaayeen gogashay dhigeen marka in qolo walba timaado marka shaqo fiican bay qabteen waxoogay waxaan doctor cabdiwahaab aan maarata ku garamarsanahay faham fiican baan laga haysanin doorashada iyo waxa aan nahay horta anagu habkan aan qaadanay waa habkan leeyahay parliamentariga baarlamanku shaqo uu ku leeyahay sharci buu dejiyaa maahana doorasho maamulkeed ma laha doorkooda maaha waxa la dooranayo waa iyaga isma maamuli karaan iyagu inay kuraasta kusoo noqdaan doorashada waxaa leh oo maamulo guddi madax bannaan oo mid qaran iyo mid goboleeda yaa doorashada leh guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada doorashaduna dalku markuu federaal yahay maamulkeedu wuxuu ka dhacayaa statiska kama dhacayo nationalka caalamkao dhan waa sidaa marka waxaad moodaa in dadkii la gelinayo xaalad jahawareera sharciga doorashooyinka ayay dejiyeen baarlamanku sharci dejinta ayagaa leh laakiin doorasho ayagu ma maamuleen mana isdooran karaan laakiin doorashada haddaan laba u kala qaadno doorashona waa mid guud oo wadanka ka waa usoo socdaa wixii xildhibaanada waa gooni doorashada xildhibaanada iyo soo xulistooda ama aqal sare ha ahaato ama aqal hoose ha ahaato laakiin doorashadii guud ee wadanka in wadankan ay dowlad dhexe ka jirto oo awood leh oo iyadu wax walba baarlamaan leh baarlamaanka matala maamul goboleedyadii sida lagu doodayo ma u aragtaa maamul goboleedyadii in shaqo aansan lahayn aysan ku jiraan maya waxaan rabaa isigu waa macnaha kuu kala cadaynaya waxaan horta haddee xalka waxaa la rabaa inuu xal sharci waafaqsan yahay innaga hadda waxba wax ka dhidhimanaadeen constitution baan leenahay wax badanna qeexaya kala cadaynaya awoodda dowladda federaalka iyo awoodda dowlad goboleedyadana wuu kala tilmaamayaa inkastoo ay jiro meelo uusan ka aamusan yahoosan aada ugu talax tegaynin baarlamanka waa labo midna waa sanadka midna waa aqalkan hoose baarlamanka la yidhaahdo baarlamanka labadooda markay isku tagamay baarlaman yihiin waa hay-ad sharci dejineed weeyaan executive-ka waa xukuumadda federaalka iyo xukuumadda dowlad goboleedyadana waa executive weeye ayagana because ayagu waxay leeyihiin marka soomaalidu sideedaba waxayban qaadaninba fikirkan federaalka weli madaxooda ku jira madaxweynihii magacaabaya guddoomiyaha saylac iyo afmadow shee ka dhammaatay weeyaan dalku awooduhu way qaybsan yihiin waa in la ogaadaa awooddii xamar keliya taallay way dhammaatay waa history weeyaan hadda xukuumadda federaalka waxaa laga dhaadhacin lahaya inay fahmaan awoodda dowlad goboleedyada uu dastuurku siinayo marka halka layska garamarsan yahay waa halka profesorka rabaa inaan siiyo awoodda kala qeexista ma dastuurka khaladaad ka jira mise maamul goboleedyadii ama dowladda federaalkeed ba waxay raadinayaan awoodaysa lahayn horta soomaaliya markay federaal qaadanaysay
gobolada waqooyi kalama tashan oo Soomaaliya Somaliland markay go'aysana gobolada koonfureed kalama tashan dastuurkan waa dastuur ku meel gaar ah weeyaan dastuur wuxuu dastuur noqon karaa marka loo codeeyo oo dad gabadha Soomaaliyeed ee joogta Raas Kambooni ilaa Raas Caseer ay u codeyso ayuu dastuur noqonayaa waxaan waa xeer jabarta dastuur ma ahan waa data incomplete laha wax xabiiraad waa sababta yani inta badan oo dastuur noqon waayna waxa weeyaa history kale u baahan yahay oo barnaamij kale aan ka dhigi doonaa laakiin midaan raba in walaalkay minister ku raacsanaan ku sheegay dhigeysa waxa weeyaan waxayna ku khilaafsan rasuuli waxa weeyaan baarlamaanku wuxuu maasmariyay sharciga doorashada oo hal qof ay hal cod uu baasmariyay gabadhii u weyneed guddiga doorashada xaliim yare idan waxay tiri doorasho macna cod iyo qof ah sanadaan ku qaban karay tiri sanadii xoogan ku qaban karaya marka maadaama yani hay'adda sharci dejinta ay baasmarisay doorasho cod iyo qof ay baasmarisay gabadhan ay codsatay muddo sanad in la siiyo meesha marka waxa soo baxa marka laba arrimood soo baxaysa mid waxa weeyaan in la yiraahdo in goboleedyada iyo dawladda ay fadhiistaan oo political settlement ay gaaraan oo ay dhahaan okay gabadha maadaama cod iyo qof ay ku qaban karto hal sano loogu daro xukuumadda baarlamaankana loogu daro way ka soo go'i kartaa meesha way ka soo bixi kartaa oo wax xusunta yani marka waa saameeyay siyaasadda waddanka waaye inay macnaha fadhiistaan ay ka soo baxaan way yeeli karaan ma yeeli karaan waxay dhihi karaan doorashada banaan galno 4.5 ka ahayd oo muddadeeda ku dhacda taasna way ka soo bixi kartaa oo marka gabadha guddiga doorashada marka marka guddiga doorashada macnaha ayaga ay isku xilqaamaan in doorasho qof ay cod ay in doorashada ay qabtaan isu diyaariyaan leedahan bilo meesha ka soo hartay laakiin mas'alada meesha waxay tahay waxa yaro hadda meesha yaalo in lagu tunto ma aha waxa yaro meesha waxa weeye baarlamaankaas way baarlamaankan waa baarlamaan adduunyada aqoonsan tahay يعني حرجة بحكو إما سانكو شيء حكو إماده لكن إن لو احترامه يعني شرعي مريا باس مريان وهو أرن في عواي وإن لو احترام إيه ما دام يا عب الدور وحكوا لو نكو شيء كسر بلا عرض كونفرنس إلا 2017 Soomaaliya waxay ku soo 20 sano way waxay ku soo jirtay doorashada dad badan ku soo jirtay doorashada dad badan gorma la tuuray dhinaca isaga riixaya war Soomaaliya Afghanistan way ka fiican tahay xagga amniga Soomaaliya Syria way ka fiican tahay xagga amniga Soomaaliya Iraq way ka fiican tahay xagga amniga marka Bashar al-Assad oo macnaha yani taasoo yani bamboyn ay ku dhacayaan asaduuq dhigana dhaw xarwaar sabaniis loo codayay maxay marka midaan iraadara rab inaan ogaado waxay tahay walaalkeen waa fadhiya alxamdulillah waxa fadhiya maanta yani living history oo taariikh nool ah ayaa maanta nala fadhiya warab inaan weydiiyo waxay tahay war 20 sanaad ku soo jirteen doorashada bare doorasho cod iyo qof hada sal lagu gaarsiin karo maxaad ku diisan wasiir warna maxaa ku jiray waa inaad igu sugtaan bay ahayd horta la iskuma haysto sharciga waxa muranka geliyay dastuurku wuxuu oranayaa sharciyada masiiriga arrimaha masiiriga taabanaya in lagala tashado dawlad goboleedyadu intay soo akhriyaan ay tala ka soo bixiyaan waxaana waa wax fiican oo sharciga way sii hagaajinaysaa dhib ma lama sameeynin oo lama soo marin dhibta kale oo jirta waxa weeye labada aqal ma wada shaqeynayaan iskuma raacsano go'aanka uu soo saaray guddiga doorashooyinka midnaba ma waxa la isku haysto baarlamaanka ma waxa la isku haysto meesha waxaa yaala dastuurkaas waa runtii waa qabyo waa xerjajab lama geynin aniga waxaan ahaa dadka ilaa war dastuurkeeni 60kii haddii wax lagu dardaray asagaa sharci hala maro isaga naftigiisu wuu kugu rifar garaynayaa wixii aad ka weyday dastuurka 60kii buu aad u leeyahay hadda waqooyi lagamaba hadlayo oo waxaan ka hadlayno dadkan hadda waqooyi bay ka yimaadeen laleeyihiin dawladda ku jiraan ciidan mataleen ma tegi karaan hadda hargeysa oo tegi karaan ayagu ma tegi karaan marka lama matalay hadda waqooyi ayada meesha ma taalo waxaan rabnaa in aan si daacad ah xaqaa'iqa yaala meesha in Afghanistan Sierra Leone Liberia wadamada anaga dhalmadkooda doorasho kama dhacin political agreement inta la gaaray inay hore u sii socdaan dalkan horta doorasho qof iyo coda waxay u baahan tahay dalka inay dawlad gacan ku hayso jirto si siman ay ooga dhici karto nidaam cid walba ka loo bagareyn karta laba arrimood inta la xalinayo horta qof iyo cod doorasho ninkan Soomaaliya ka dhacaysa
qof daacad ka ama haduu ilaahay ka baqaya xitaa su'aal ka taaganta intay shabaab joogto oo dhulkan koonfurta amaamusha hadda maxkamadaheedii baa jira ciday tiraada xatagina taa shirka lagama badbaadin karo hadii la yiraahdo 100 qof la isku soo bixiyo arinta Somaliland iyo goosashadeeda inta xal loo helayo doorasho horta Soomaali ka dhacayso cod iyo qof ninkane aniga waxaan waxa uu aanin ogeynay uu ogyahay ba horta aniga rabaa inuu ii sheego afkooyi ma gaari karto xukuumaddu daraad bay ahayd taliyaha ciidanka Axmed gudihiisa lagu weeraraya ninka intuu isku soo saaro ku qof dhihi kara meel walba ha ka codeeyeen waa kuma Somaliland baa hirgelisay doorasho qof iyo codaho laga soo qaadan lahaa laakiin Somaliland dhulkooda gacanta ay ku hayaan way ka hirgeliyeen hadda meesha quroo la dhihi kara haday u diyaar garoobaan way ka dhici kartaa maybe Puntland oo kale oo ayaga inta badan dhulkooda gacanta ku hay waxa la isku haya marka waxa weeye cid walba way rabtaa doorasho cod iyo qof war hadda ma dhici kartaa inay dhici karin wax asoo dhan baa u muuqda adiga waxaad leedahay hadda hal sano hadii la siiyo 4 sano soo socota ma lagu gaari karo ma lagu gaarsiin karo dalkan shabaab ma laga saari karaa meesha arinta Somaliland ma xallin kartaa markaas Soomaali ma qaban kartaa doorasho qof iyo coda waxa laga hadlayo waa taa weeyaan ninna principalka iskuma diidan war waxan maxaa suuragal weey wax meesha wasiir waxa rabaa inaan ku weydiiyo Dhuusamareeb oo aan ognahay hadda in madaxweyne Farmaajo uu dambeeyay uu tagay maamul goboleedyada lagu casuumay oo shir dawladdu ugu baaqday inay yimaadaan dawladda federaalka ma la oran karaa basayl baa ka muuqda iyadoo madaxda ugu sareysay wadanka hadda inta Dhuusamareeb iyagu shir gaar ah isugu yeerteen inay ugu tagaan madaxda soo lama oran kara dawladda Soomaaliya tanaasul nooc kasta hay diyaar la tahay ee maamul goboleedyada bas dhinaceedu wax ka soconay maya lama dhihi karo tanaasul waxa la dhihi karaa markii intii la wada hadlo political agreement la gaaro dalkan doorashada laga gudbiyo way dhici kartaa inta uu professor ku sheegay in la yiraahdo kaadi badana waa loo gogol badiyay aan balsiino qoladan haday doorasho cod qof la gaarsiinayo waxaan loo oran karin waxa la ogyahay xaqiiqda inay gaarsiin karin 3 sano iyo bad waxaad ku qaban weyday wax ku qabanaya 6 bilood iyo sanad waxa weeyde wax qof weyn loo sheego ma aha gogashan ninkan dhigay qorqor filla Soomaaliya keentay haday ahaan lahayd gogashu tagi lahayd jubba kismaayo kale haduu tagi lahaa la dhihi lahaa compromise bay sameeyeen xeradoodii baa loogu yimid hadda ayaga marka laba compromise waxa la dhihi karaa markii meesha la isku yimaado inay u hogaamiyaan in political agreement wuxuu noqdo lagu heshiyo dalka hore loogu sii dhaqaajiyo aniga ismalihi xeer jajab kiba laga baxay malihi political agreement baa lagu wadaa situationada anaga hadda dalkan aan ku jiro kale dalalka nala midkoon ku soo tilmaamay oo anigu dadka ka soo shaqeeyay humanitarian kaas wadamadaas oo idil guurti baa la isku keenay Afghanistan markaas ay ku gaadheen inay yiraahdaan because Taliban on sababta noo kale dhulkii ka talisa doorasho lama sameyn karin hadda la filaya markii Taliban la heshiiyay in la dhihi karo doorasho la galin marka inaga waxa weey reality-ga ku dhax jiro xaqaaqa ku dhax jiro aan wax ku qaybsano oo intii la iska daayo isjiidka xukuumadda federaalka dawladaha goboleedyadu waa member states xubin waxa xukun kale madaxweynaha la rabaa inuu isku hayo federationka waxaan haysanana waa dastuurka qabyad oo asaga xeer shashabka ku dhisan laakiin wax badan kala tilmaamaya isaga aan ku socono oo hay'adihii dhisnaa hadda mandate-kooda wuu dhamaanaya baarlamaanka wuxuu kaga yahay November ayaga maan leenahay kororsada saa doontaan yeela ma yeelayaan dadkeena diyaar oo ma waxa la rabaa muddadii la isku ogaayay 4 sano ahayd inay meesha joogaan oo galaadaan lala tartamo ha soo noqdeen ma laga qaado taasay ku dhici kartaa xalimayay waa gabadh dadaal badan aniga ixtiraam badan aan u hayo laakiin hadda sidaad iyo hor fadhido waxaan ku dheelaa 3 sano iyo bar waxaad ku qaban weyday 6 bilood saad ugu qaban isha
waa gartay professor Abdihaab baan ku laabanayaa dooda intaan shirka ka bixin shirkii dhuusamareeb haddaan ku laabano professor marka la eego ama tutore marka la eego kala aragti duwanaanta madaxda gobolada qudhooda ee ka dhex jirta ee ku saabsan qaabka doorashada dhici lahayd saameyn ku yeelan kartaa natiijada shirkan iyadoo xaalad kala guur la marayo horta shirkani ani horta wax badan ay ka soo baxayaan ma aha laakiin wasiirku waxaan rabaa inuu xiriir xusuusiyo Afghanistan doorasho ka dhacday ayadoo micnaha qofkii micnaha codeeyay farta ay Taliban ka goynaysa farta waa farta fiirnaya micnaha inay qofku soo codeeyo farta rangir baa la mariyaa oo micnaha madow farta ka goynayeen meelaha xukuumadda haysa farta ka goynayeen meelaha xukuumadda haysa kaliya ay doorasho ka dhacday Liberia wadarkiisa ay Sierra Leone labadaba doorasho ka dhacday Liberia markii Jalastay lama shaka tagay Alice Santos Salif bama qabsatay hadana nin kale meesha ku wareegay horta doorasho Soomaaliya wadanka markaad gudaha fiirisid marka walaalkay minister soo sheegay runway gobolada waqooyiga asaga dhig Puntland doorasho ay ka dhici kartaa galmudug nafteeda meelo badan doorasho ka dhici kartaa gobolada waqooyiga nabad u soo dhowda Hirshabelle markaad fiirisid meelo badan ay doorasho ka dhici kartaa Jubaland nafteeda hadda qolooyinkan dawladda ma yara qasqastay ma ahane iyo kuwan ay sheeg muxuu iyo madooba isku dhacay ma ahane meelo badan doorasho ka dhici kartaa Soomaalidu waxay ku soo qaxday gobolada waxay ku soo qaxday inta badan dadka Soomaaliyeed waxay ku soo qaxeen magaalo weyn lagu soo qaxay oo dadka xoogis meesha joogaa haddii Soomaalidu macnaha yani ay soo tanaasuli karto waxa weeyaan walaal doorasho wadanku ka dhici kartaa oo dhab ah laakiin political will baan jirin waa soo walaalkay sheeg runtiis weeyaan dadkii aan wali heshiinin dad markay heshiiyaan oo macnaha yani compromise sameeyaan ay horta doorasho qabsan karaan xataa doo wadanka nabad yahay laakiin nimankan macnaha political elite-ka isla heshiis ahayn doorasho wadanka ma dhici kara laakiin wadanka amnigiisu wuu fiican sidoo Soomaaliya ka soo qaynaysa aad bay Soomaaliya soo ugu soo fiicnaanaysa u soo noqon marka shirkan hadda ka socdo muxuu ahaa ka socdo Soomaaliya dadkani waa dad macnaha waxa weeye fikrado kala duwan wata weeyaan nimankan xataa yani muxuu ahaa maamul goboleeda naftikooda dad badan oo arrimaha Soomaaliya indheeya waxay ku tuhunsan yihiin waa tuhun weeyaan dhab ma ahan in xataa wadamashii dabada ka riixayaan wadamashii inay dabada ka riixayaan oo macnaha ajenda xataa ayagaysan ka go'in waa waxyaabo wax ma kamid tahay dhinaca kale dawladda nafteeda kama barna dawladda fikirkeeda wax lagu xamar nafteeda wadamada inay nafteeda dabada ka riixayaan baarlamaanka naftigiisa wuxuu leeyahay awoodiyaba laga qaaday sharciga baarlamaanka ana mariyay oo macnaha cod qof ahaa ay maamul goboleed laalayaan oo rabay inay laalaan marka anaga maxaa meesha u joognay taagan xisbiyada qaramada xisbiga qaran waxay awoodi waa dawladda iyo maamul goboleed ayaa basir kubadda ku tartamay banaanka la dhigaba marka waxa soo idil waxay u baahan yihiin oday Soomaaliyeed oo sida yani walaalkay oo kala ah oo dhax gala oo dajiye ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in xalan oo kala ah oo oday ah oo wax badan soo ogaa inuu dhax gala wax bulletka waxay u baahan tahay bulletka testament u baahan tahay oo xukuumaddan afarta lagu fiiqin maamul goboleedna afarta ugu fiiqin baarlamaankana afarta ugu fiiqin madax xisbiyada afarta ugu fiiqin laakiin meel la isugu yimaado oo macnaha wadankan si loo soo bixin karaa marka ninkii sabab bixin lahaa kula fadhiya asaga talada keena waxaan wasiir inaan ku weydiiyo intan maamul goboleedyada oo la leeyahay dawladda dabada ka riixaya iyo sharcigaas diida la leeyahay iyo waxyaabaha la midka eedaas sidee u aragtaa adiga horta eedaas mid baysle ma laha waan ka xumahayna aad baan uga xumahay sababtu waxaa weeye waaga hore waxaa la lahaa Ethiopia xiriir ku leeyihiin Ethiopiana federaalka bay u guurtay hadday dawlado cidaba ka riixayo dalkan wareerinayaan xukuumadda federaalka ku taxayeen ama lacagta qadar ee baarlamaanka iyo hay'adaha awoodooda lagu undermine gareeyay ahaato ama ciidamada Ethiopia loo adeegsaday waxaan ahayn mandate-ka halka uu joogeen ay kamid tahay oo ogtahay adiga oo kamid tahay doorashada wax la cadeyn karo ma laftirkooda wala cadeyn kara tan ciidamada Ethiopia iyo Qatar iyo roolkay ku leeyihiin Ethiopia waa la cadeyn karaa baydhabo waxa ka dhacay baa cadeyn kara qoraalkii UN-ka yaala laakiin diligence human rights violation ka dhacay laakiin inta warbaahintu ogtahay waxaan ognahay in maamulada qaar ay gacan saar la leeyihiin aan ku dhameeyo waad iga soo degdegtay maamulada hadda gacan saar dawladda shisheeye la dhihi karo way kula jiraan qolada la yiraahdo
Dubai World oo dekada berberi iyo boosaaso maamusha hadday xiriir jiro waa Somaliland iyo Puntland kuwan kale xiriir ay leeyihiin oo jiraba ma jirto oo dawladda kale xiriir leeyihiin laga riixi karto haddii qoladan federaalka oo xukuumadda federaalka oo machinery badan haysata dhaqaale badan haysata propaganda badan ku bixisay waxay leeyihiin Jubaland Kenya maaragtay Kenya waxay ka mid tahay ciidamada AMISOM bay ka mid tahay ayaga Uganda ilaaliya xukuumadda fadhida xamar ma soo qaadayaan kama hadlayaan Ethiopia isticmaaleen oo Mukhtaar Roobo kaga soo xidhay baydhaba kama hadlayaan marka waxaa la rabaa horta inaga inaan ka baxno waxaan khiyaamadan si honest u wada hadalno dalkan awood ma jirto cid maanta hadda xitaa dawlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka hadday xitaa heshiiyaan dawladda federaalka xamar kaliya xukuntaa madasha xisbiyada iyo madaxdii mudulood halkaas ay ku shireen meeshana qof kama joogo representation kama joogo la-aantoodna lamaba xukumi kara meesha waxay in la ballaariyo oo la yidhaahdo warkaalaya madasha xisbiyadu imaada warkaalaya aan tashanay dalka transition buu gelayaay oo political agreement la gaadho baarlamanku kan hadda jooga waqtigiisa waa sii dhamaanay mid kala bedelayo raggan hadda jooga inay badidooda soo noqdaan baa dhacay political agreement baa loo baahan yahay tabar ma jirto awood la isku maqoonin kartaa ma jirto dalka uu kala qaybsan yahay hadda intan la hayo bal in la isku hayo hore loo dhaqaaqo aan cidna cid sirin Soomaalidu dhibaatada tan waxa isma siri kar because sir ma laha waa la og yahay qolo walba waxay qorsheynayso waa la og yahay marka hadda lama dhihi karo qorqor dawlad shisheeye dabada ka riixaysa lama dhihi karo lafta gare dawlad shisheeye dabada ka riixaysa lama dhihi karo dawlad goboleedyada cid baa dabada ka riixaysa inta aan ognahay wax real waa qoladaas imaaraadka oo labada dekedood maamulaan oo contract heer inta la ku tilmaami lahayd marka xiriirka iyaga ka dhaxeeya marka laga yimaado dekedahaas oo la maamulo iyo waxyaabaha guud oo danta shacabka waxyaabaha hoose maxaad ku tilmaami lahayd horta nimankan golofka lacagtoodu lugooye ku ahay dalkan oo ayagana dhibaatooyinka hadayna haysto waxaa ka mid ah ayaga proxy war baan wax la yidhaahdaan dhexgalay oo imaaraadka iyo sacuudiga iyo group dhinac ah iyo qatar iyo turkiga iyo qolo kaloo dhinac ah waxaad moodaa hadda qoladii qatar iyo inay ku guuleysteen oo hadda ayaga xukuumaddii gacanta ku hayaan qoladan imaaraadka oo doorashooyinkii hore lacaga badan geliyo dhibta gooni kama intay faraha kaga gubteen waxoogaada dib ooga gurteen baad moodaysaa oo adiga ay xagga dekedaha iyo boortiska un ay xoog saarayaan marka laakiin ayagu de labada dekedood ba haystaan dekeda xamarka turkiga ayaa gacanta ku haya shirkad turki ma ahe shirkada xukuumaddu siisay contractiga markii la siinayay baarlamankii dad baa ku kacsanaa dadkii difaacay baa sababtoo dekedii baan ka saari weynay musuq maasuq marka in cid noo nadiifisa ay timaado dadkii in favorka ka dhigay oo reportka qoray oo yidhi waba horta hala kalen garay hadhow saan doon inoogu dhiiba marka waxaa in deedna si kale oo khariban loo isticmaalina hadda waxaan u baahanay transitionkii wax suuragal ah oo heshiis lagu yahay oo horey inoo dhaqaajin kara haddii la doono waxaa la dhihi karaa haddii wax kale la waayo aad bay dadka Soomaalidu sensitive uga yihiin muddo kororsi dadka hadda hal qof iyo hal cod ku doodaya nuxurkeedu waa muddo kororsi diyaar looma aha waxaa la dhihi karaa unity government aan samayno oo dawladdan hadda jirta iyo mucaaradka intay isku tagaan xukuumad unity oo 2 sano iyo sanadii waxa doonaa lagu heshiiyay meesha gaarsiisay oo bal soo gudisa haddii la gaarsiin karo in la yidhaahdo laakiin honesty markaan kula hadlo waana jeclaan lahaa dalkan intay shabaab meel la saarayo arrinta Somaliland xal loo helayo dee dalkan rabnay oo doorasho ka dhaca lahayd meesha markii imaanayso waa gartay waxyaraan ku wadil lahaa waxaa intuu wasiirka sheegay horta runtii waan ku raacsanahay yani caretaker government in la hagaajiyo haddii ba xaliimo ay ku doodayso 1 sano iyo 1 codan waa hal sano wax badan ma aha wax aad u yar weeyaan haddii ay suurtagal tahay walaalkii xarane wasiirka warkuu sheegay runtii waa arrin aad u fiican waay in la sameeyo wax loo yaqaanaa caretaker government ama coalition government la sameeyo mucaaradka prime minister ka yimaado wadanka marka hal qof la gaarsiiyo sanadka gabadha ay sheegatay bal haddii wax ka suurta galayaan
ورفتك واستاء وطلاب هور لو قاضي ويان xilligan xadarka markaad fiiriso wasiirka xataa uu runtii og yahay waxaad arkaysaa yani dadkan xataa soo dooranaya maartay oo macnaha yani members of parliament odayaal baa soo xulo odayaashan sikoodii oo macnaha waa la corrupt gareynaya exactly bisin corrupted wax ninkii la rabay marka ma imaanaya haddii maanta xaalada maanta uu istaago oo macnaha yani baarlamaanka si ku soo gala waxay ku xiran tahay inuu bribe gareeyo odayaashaas macnaha yani inuu bribe gareeyo ama yani lalu sii ku xiran tahay marka taasaan raba marka in laga baxan rabay suntaani si marka qofka Soomaaliyeed ee ku nool macnaha waxa weeyaan gabadha Soomaaliyeed qoqaani ku nool ama aadan yabal ku nool ama yani burtilo ku nool ama ku nool macnaha guriceel inay doorato qofka idin rabto inay doorato oo xalan oo kala soo bixi lahaa hadda ma soo bixi karaan waxay ku soo bixi karin yani systemkiya waxa manipulation lagu sameeynaya waa la qaribaya odaygii marka waxa waa lacag qaadanaya qof maasmano oo meesha keenaya xaq u dhig marka arintu ka dhawaajiyo macnaha yani ka dhawaaji muxuu ahaa al-shabaab daraad markay tagayeen Soomaaliya bay tagayeen waxa ka dhacay dowladda military ka dhacay dowladda military waxa ka dhacay nin kasta militia keensaday war ciidanka ay haystaan hadda isku daraan al-shabaab way dib karaan wadama adduunka qabsan karaanba war al-shabaab waa la dumin lahaa وهذا اللي جيب لها هذه أي كلية معناها waxa weeye hadi ayaga bis ay xoogooda kale isu geeyeen intaas macnaha ay sameeyeen kaliya hadii al-shabaab ku jeediyaan al-shabaab waa carar lahaydba marka dibka marka ishtay waxa waaye oo xalana uu ka dhawaajiyo waxa weeyaan political will baan jirin dadkan yani awoodoodii ma arkayaan haday isu imaan lahaayeen oo macnaha ay tashan lahaayeen wax looga ma runtii qof dad sharaf leh oo macnaha haddana dad Soomaaliyeed haddana la hadlaynaa waxa macnaha loogu maaha islaam baa waxay dhashay wiil nacasa oo yani xoolo badan abood ugu tagay markii xoolihii abood markuu ugu tagay xoolihii marka qof kasta hunguriyayna inuu dhaco rabaa islaam xawayir aqal badan baa waxay tiri waxaad yeelaysan bal intaad iska horjisataan bal dhulka xariiqay tiri waaga markuu bariyo shantii wiil way soo imaadeen dhulkay fadhiistay dhulkay xariiqeen dadkii marka xoolahooda boobi lahaa way kala carareen waxa la dadkii nacaasiinta maanta way tashanayaan xoogooda ay madaynayaan marka way kala carareen marka xataa de shantan macnaha yani meesha ku shiraysi xukuumadda ay dhulka xariiqayeen nimanka carabta iyaga iska kala carareen qof kasta oo ku gelina laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sore su'aasha taagan una ka hadlay wasiirku waxa kamid ahayd kalsoonidii inaysan jirin doorasho sidee loogu heshiiyay hadiiba xitaa madaxda maamul goboleedyadu ay naftooda ku aamini laayeen inay tagaan magaalada Muqdisho taas waxa laga cabsanay dowladda nafteeda 3 sano iyo bar ay xukunka haysay in macnaha waxa hal sano halkaas hadda ku baaqaysa leedahay doorasho lagu qabtay leedahay hal wuxuu hurdiswa halkaas hatta kuma gaarsiin karta laakiin yani waa compromise waxa la sameeyay dowladdu waxay ku guul dareysatay dalkan hal sano hal qof inay gaarsiisa waxa kale ku guul dareysatay inay trust building ay samayso oo macnaha rag walaalo wuxuu ku dhamaa la waayay in raggan walaalahooda wax ka tabanay inta la fadhiisto dhageysato waxa ay tabanayaan wax ka qabato tusaale markaan ka soo qaata yani Jubbaland hada ninka madaxweynaha ka ah Axmed Maxamed waxay marar inay dawladda macnaha waxay la fadhiistay ahayd waxa uu tabanay waxay tabanay inta dhageysato waxa hadda u ogolaatay hadda maanta waxaan maqlayaa waxay leeyahay 4 sano waxaan ku siinaa sharciyadan ku siinayna ayuu leeyahay marar muxuu sii waay markii anigu soo baxay inta la fadhiista muxuu sii waay wadanka dibku waxay ka taagan waxay tahay dawladda loo baahnaa dadkan waa dad macnaha xirjab ku imaaday dadka waa dad kala irdhobo weeyaan dadka waa dad hadda la sukeena waay marka waxay ahayd dawladdu inay macnaha leadership yani inay they have to provide leadership inay leadership keentay dadka isu keentay ahayd hadda marka qorqora isu keenay oo Google liga isu keenay shaqada qorqor uu qabanayo waa shaqada farmaajo qaban lahaa ama prime minister uu qaban lahaa way taa ku raacsan wala ka rujis weeyaan inay failure leadership inuu jiraan shaki iga ma jirta ayda gab inuu jiro shaki iga ma jiro laakiin waxaan diidanahay wuxuu dalab ha ahaada maanta madaxweynuhu ku yahay wuxuu dalab ahaada maanta prime minister ku yahay ha ahaatee yani waxa laba qalad hal sax ma sameynaysa qalad wuu dhacay qaladka aan saxna dadkii ha isu yimaadaano xukuumadii macnaha waxa lagu tixgeliyaa ninkan kursigu hay waxa weeyaan yani maqaamka maanta dawladda uu ku hayay ha lagu tixgeliyo ha lagu dhowro prime minister ha lagu dhowro nimankan ayagana ha lagu dhowro laakiin halas compromise la sameeyay
oo micnaha waxa weeyaan yani aniga waxaan taagnaanayaa doorasho cod ma dhacaysa haddii dhici weysa madaxweynaha villa toban uu dhicina soo jiidaynaa dhulkaan ku jiidaynaa ma ahaan doorasho hal qof hal qof hal cod doorasho ha dhacdo haddii dhici hal sana liigu daro asina uu taagan yahay war wadankan saan kuma soconayo wadankan wuxuu u baahan yahay waa xaalada iyo rag lamida inay dadkan dhex galaan oo micnaha ay ku qanciyaan at least in compromise la sameeyo kuwana xaggan ay kasoo durqaan kuwana xaggan ay kasoo durqaan lisu keena markaan xaan waxaan ku talin lahaa brisbane tigid ha goostee ragkaa dhex galaan waa garta wasiirka rabana usoo laabto wasiir maamulada qaarkood sida puntland iyo jubbaland oo kale waxyaabaha ku adkeysanayaan waxaa ka mid ah in doorashadii dadbaneed hore lagu celiyo wadanka marka la eego duruufaha iyo xaaladaha wadanka ka jira oo adigu qaarkood hadda aad sheegtay oo ay ka mid yihiin Somaliland oo nala heshiin dagaalka lagula jiro al-shabaab oo weli laga guuleysan iyo qodobo la mid ah shalay garowe madaxweynaha puntland uu siyaasadeed ka daafuray dowladdu golayaasheeda ku mideysay oo ka hadleera wuxuuna halkaa ka sheegay in Soomaaliya ay sidaas oo kale la rajeynayaan oo Soomaaliya u gudubto doorasho qof iyo cod ah oo laga gudbo doorashadan dadban madaxweynaha puntland wuxuu sheegay in puntland ay ka gudubtay nidaamka qabiilka oo asxaabti badan loo gudbo Soomaaliya saas kale la jecel insan ku sheegay marka sababta puntland iyo maamulada kale ee ka soo horjeeda in wadankan doorasho qof iyo cod sanad ama 6 bilood lagu gaarsiiyo maxay tahay oo salahan puntland ay ku doonayso iyada inay doorasho qof iyo cod ku qabsato Soomaaliya ay ugu diideen leeyeen qabiilka lagu celiyo annaguna qof iyo cod baan gudbeenaa hadda waxaan ka xumahay horta sidaad u dhigtay ma aha siday wuxuu yihiin doorasho cod iyo qof cid walba rabta ma suuragal ma tahay nimankan maxay yidhaahdeen doorasho cod iyo qofa inkastoo la jeclaan lahaa communiquega ma akhris ma ka suuragelaysa xaaladda dalku ku jiro muddo kororsina lama ogolo 4 sano Soomaalidu samir badan oo 4 sano ku dheer inta kale aan ka heshiino sidaan yeeli lahayn way horta waxa meesha la isku hayo laakiin dawladdu ma aqbalin Soomaaliya communique waxyaabaha ka soo baxay in la yimaado oo hadda go'aan la iska gaaro baa la isku yimid dawladdu hadda way imaadeen waxa haday yiraahdaan doorasho cod iyo qof aan dalka gaarsiinayna hal sano ku gaarsiinayna sidee inay sheegaan baa la rabaa sidee ku gaadhayaan taas adna waa ogtahay adna waa ogahay inay suuragal ahayn waxaan suuragal ahayn marka waxay dhihi karaan inay suuragal ahayn ma qabtaan kaadi badana waa loo gogol badiyahay dawladdu wadaaga aan dhisno kaalaga aan iskugu tagno oo dawladda caretakerka aan samayno hal tijaabo saxalimiyada iyo waxa sheegayaan inay kaga dhawayaan in kale aan ku tijaabino mucaaradku keena siduu sheegay ra'iisul wasaaraha madaxweynahana ay iska joogo markaas haddii political agreement dhaco dawladdan hadda khaladka ugu weyn meeshu ka jiro xasan sheekh markuu bilowgii asaga naftigiisu Jubbaland ku dhacayo meelo iyo dagaalka markii dambe reality wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo National Leadership Forum maadaama tabartiin badanta dalkeena kala qaybsan yahay National Leadership Forum oo madaxweynaha ra'iisul wasaarihii speakerkii iyo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada intaas lagu gaaray in lagu soo gaarsiiyo dawladda markay timid bay kala dirtay National Leadership Forum qaladka ugu weyn buu ahaa awoodii badnayd ee xamar lahaan jirtay oo Soomaalida waxa halka gaarsiiyay baa rag madaxoodii ay iskeliyeen hadda tii soo gudhay runtii nimankan reer Dhuusamareebeed ama reer Galmudug way dadaaleen waxa la rabaa in la appreciate garay hadda hadduu diidi lahaa Maxamed Cabdullaahi inuu yimaado Dhuusamareeb actually waxa ahayd inay waxa ka si fogaan lahayd inay Axmed Madoobi iyo Dani iyo diidaan because qoorqoor inuu filla Soomaaliya sameysay oo maamulkan ay sameysay waa la wada ogyahay way wada raadinayaan rag compromise way wada raadinayaan Puntland inay talaabada qaado way fiican tahay Galmudug baa la rabaa inay ku daydo way isku daydaan Galmudug way ku dayan doontaa Jubbaland ku dayato South West ku dayato dalka la soo wada gaarsiin ma la jooga halkaan lama joogo waxaan ku leeyahay xitaa ma aha dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka qura ka gooda ma aha arintu awoodo kala jira kula hadda waxay in loo yeero madash hadda yiraahdaan nimayaw magaalo madaxda anaga nalama qolada meesha degtay ugu badan nalama matalaya inuu kala wada meesha waxa laga qabanaya aqli baa rabaa in isku keenay magaalada ma joogo meesha wadalki kala guur hadda nimankii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo حسن شيخ
way oga sahlanid inuu awood ku maqooniyo oo yiraahdo waan joogaya because deegaankiisii uu ahaa meeshay dhex taallay wuxuu ka doorbiday dastuurkaasi jajabka in la qaado oo lagaga qaado kursi inuu helayo u haystay waa lagaga qaaday farmaajo soo saaray waxaad ku soo baxday waa diidin daadiga haddaad keeni weydo wax ka fiican almeena waxay hadiidin dayska lagu aad ma santahay wili waxaan ku jirnaa barnaamijka gorfaynta oo idinkaga imaanaya telefishinka RTN xarunta koobaad ee magaalada Nairobi qaybihii dambe doodana waa ku jirnaa barnaamijkana waxaa marti noogu ah haddaan dhinaca mid ka bilaabo Dr. Abdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeyo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba sidoo kale waxaa nala jooga Xuseen Cabdi Xalane oo horey 2 jeer u soo noqday wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya siyaasadda Soomaaliyana si dhow ula socda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir waxaa la soo warinayaa maamul goboleeda qaarkood inay la safan yihiin madaxda dowladda oo dhusmareeb ku sugan la kala safan yihiin arrintaas jahin sax ma ku keeni kartaa baa la oran karaa shirka si looga baaqsado fashil ku yimaada horta waxaan war suuq ah aniga ma jecel inaan adeegsado nimankan communique bay soo saareen shanta dowladood ay wada saxiixeen shanta madaxweyne communiquega waa 2 qodob oo xaaladan ku jiro doorasho cod iyo qof dalka kama suura gali karto dadka anaga muddo kororsi diyaar oo ma aan isku nimaano ka tashana sidaan yeelle marka hadda waxaan warsuuqa kale way la kala safan yihiin aan dhinac iskaga dhigno waa la isku yimid dalkeena transition buu galaya haddii uu political agreement jirin oo meesha leadershipki way ku dhan yihiin ay wax ka soo bixin waliba kuwa ka maqana inay ku soo darin oo waxba maalin iyo laba la degdegin intii loo fariisto Soomaalidu waxa lagu gaaraa hadda Somaliland heshiiska inay gaadhaan waxa loo fadhiyay 3 bilood bay gugasho taale intii la wada hadlo si dhaba loo hadlo la is urbuqdo cidna ay isku dayn inay ka aqli badan sicida kale ma kala aqli badan soo garanaya in lagu gaadho heshiis la yiraahdo waxaan jeclaan lahayn waa meeshiis maxaa inoo soo gala hadda xilligan oo dalka hore uu sii wadna haddii hadda sidan ku socoto kala taagnida ku socoto muddadiina dhamaato fawday wadada u furi kartaa in laga hortago inay fawdada dhacdo taas baan rajaynaynaa waa gartay maamulada naftirkooda Dr. Abdiwahaab inaysan isku aragti ka ahayn waxa meesha ka socda shirka fashil ku keeni karta horta waxaan u maleynayaa xalana ku sheegay intuu xalana sheegay aadan ugu raacsanahay meesha waxay u baahan tahay political settlement u baahan tahay gogashan kaliya ma ahan maamul goboleedyada madash xisbiyada la keeno baarlamaanka labada gudoomiye aqal baarlamaanka la keeno ku xigeenada la keeno yaani la sameeyo warmiyahow maxaa wadanka dan u ah in xagga la iskaga riixaa waxa loo yaqaan individual interest waxa qofka shakhsiyan uu qabo ama halka siyaasad qofka uu qabo in la iskaga riixo laakiin ay noqoto war dalkii iyo dadkii maxadan u ah haday marka ay soo baxdo in hal saqaaqas ay sheegatay Fadmiyari Xarmiyari ay sheegatay oo macnaha wadanka cod iyo waxa ku gaarsiinaya hal qof ku gaarsiinaya leedahay hadii xataa taa ay noqoto kulli kuma gaarayso sheega runtii weeyaane laakiin ay xal noqoto in la sameeyo compromise oo macnaha waxa weeye coalition government la sameeyo roadmap wadanka loo dejiyo halkan sana waxa waaye in prime minister la keeno ama roadmap la keeno oo la yiraahdo halkan sana intaan ayaan qabanaynaa A B C and D ayaan ku qabanaynaa gabadhan agabka loo baahnaa la siiyo يعني فوتر ريجستريشن كو بلوضو يعني اي دي وجه حتى waxyaaba runtii la yaab kale waxa kamid ah yaa codaynaya Soomaaliya yaa Soomaaliya aniga kiyo u dhashay doonta ma codayn karaa waa su'aal waa codayn karaa laakiin loo dejinin bada habka waxay dhigi jireen Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaalida abtirsiimo waaye ma ahan kii kale jinsiyad ma aha abtirsiimo waaye saddex waddan dunida aan ku noolnahay jinsiyadu abtirsiimo weeyaan waxa kamid Israel hadda nin Jewish ah tahay oo ku dhaltay New York hadda tagtid macna Jerusalem ama Tel Aviv tagtid macna waxa weeye nin Yahuudi ah tahay wad codaynaysaa Soomaaliya la mid weeyaan Hindidan la mid waaye macna waxa weeyaan يعني كلا سينجاها نيو كل شيء كل نقطة إنديا وإنديا سومالي سلوات سومالي حلوة ترسيموه يعني ما هن جنسية ما هدي أحمد محمد إسلام وكل شيء يتبي كل شيء سومالي مثل هناك نوع كره صوت الجنسية ده بس ترسيمه هذا تاسوال إنه يقعدوا وياه مد كلام ربنا قصة وحيتها وحويان إن يعني بدنا الله دياري وحي وبهانته
يعني voter registration la diyaariyo macnaha constituency boundary la diyaariyo يعني meelaha laga codeyn la kulli la diyaariyo wani haday ku qaban haday xoogooda mideeyaan halkaas ay ku qaban karaan laakiin hadda waxa aad muhiim u ah dadka in laga badbaadiyo inuu ku noqdo 1990 inuu ku noqdo ay hadda muhiim hadda ah marka inay isu yimaadaan oo macna compromise ay sameeyaan arin waa maanta ku qasban yihiin nimankan meesha fog jirana ay soo dulqaan kuwan dawladda meesha fog jirana ay soo dulqaan meel dhaxal isugu yimaado daas waa leeyahay haddaan ku talinayo war xalanow war wax fi wadaan ka arkay meesha ma tagtaan ku hayaan kuwa sida uu diiday hal mid aan ku daro ah madaxweynaha dhawaan wuxuu sheegay doorashada qof ee codkaasi ku adkaystayba ha suurtooda ama aysan suurtoobin rasaaruhu hadlay wixii nooc kasta oo kamid ah doorashada wadankan inay waqtigii loogu talagalay ku dhacdo ayaa loo baahan yahay sidii hore ma u sii midaysnaan karaa kala tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxaa sida horta wararkan yani oo social media qoraan markaan dhinac isaga dhigno Afrika markaan tusaale soo qaato xataa wadankan Kenya markay doorasho soo dhawaato waxa bilaabanaya يعني شفتنا بالابنايه وافريقيا عاني ku tahay madaxweynaha iyo martay yani iyo prime minister ay afar sano soo wada socdaan naftigeeda guul waay inay soo wada socdaan oo soo wada shaqeeyaan naftigeeda guul ah laakiin sida hadda yani ku socotay ay hadaan sharaxno waxa dhici karta isaga maamul goboleedyada isaga inay qaab galaan madaxweynaha iyo martay iyo aqalka sare aqalka hoose ninka parliamentarianka إيه مدرسة حزبين نفتكر إنه يدعى في وزوج جيران ومعقول إذا لكن واحد صاد واحد صورة قلم هاد حلي كان متاجنا حلي كان حيتاجن تهاي حلي كان متاجن حلي كان حيتاجن ده كان سلوسه بتبحيان هل كان سنة حارت ما هل سنة حكومة اللي قلت لها قبل يعني هل سنة كود ديار الدورة شدة مسد دورة شدة بران قلنا ولا كأن بدنا ذاتك دورنا أن بدنا سيمك مسباس كانوا يرينا مد ما أنت هو شوف التاسواي لكن هذا كام كان ولينا بجاري وحصابح الدورة هرت إن لقوش نوع الدورة شيء جرتا مركز كبعد مثل الأكل كلا إدو المجلس صوته. وحتى تلا وصل لابننا أركض سؤال سكان روينا كويديو مدحونها يرجل زاره وده سعود كهذا حتى مسيس عن كرا مسوي حلقية بعدنا أيضا أصحاب سياسة إن لك لصفتان أمام القبلة تدم. مدحونها موقف كيسوا عادي هاي. رجل زاره هذا الكيسي ووافق سي هاي. كومينيكيجا دو سمريب وافق سي ما من قبل وقرع سنة بروفيسور كوا إني وضع شقيان مدحويني رئيس الوزراء هم مدة صوّد السعودان وحام سوا عرقني مدحويني رئيس الوزراء فرق أساسته كل بيس بدلي و نقم في عنه هدونا إن شاء الله لقوا ضيان دور لكن هذا وعن أغنى مركي لقالو كلا جورك ده رجوا أمبيشن بولي حسن خيري ولي وحما شيغان لكن وحيابا بدن oo indicate gareynaya inuu ambition leeyahay baa jira waxyaabahan uga fogaanayay waxaan social media Soomaalida runtii aan inta badan iska mala awaala hadda asaga waxa weeye kaarka wax badan bedeli kara dhinacuu raaco hadduu madaxweynihiisa raaco dowladda federaalku sida isugu dhaganaadaan laba block oo marka waxaa noqon kartaa adag hadduu laakiin raaco maamul goboleedyada raaco asagaana executive-kii ah marka madaxweynuhu wuxuu galayaa xaalad adag buu galayaa dowladda marka shifting conflictiga ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka wuxuu u shift garoobaya leadershipka federaalka waa maxaa ka dhalan kara haddii laba garab ay timaado waxaa laba negative iyo positive way yeelan kartaa waxaa hadda hardline-ka lagu tirinaya waa madaxweynaha iyo tiimkiisa oo dowlad goboleedyada iyo dad badan inay ka fiigsan yihiin hadduu ra'iisul wasaaruhu xagga maro waxaa suuragal noqon karta in madaxweynaha marka la khasbo la yidhaahdo iska dhig burkan aad wadatid adeer baasha halkaa iska soo dhamaatay marka laakiin hadda de weli ra'iisul wasaaruhu ma muujinin inuu madaxweynihiisa ka hor yimid laakiin de waxyaaba la akrin karo
way muuqdaan shirkanayna ku kala cadaan kartaa kala guurka hadday taagantahay gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waxaan haysanaa 4 daqiiqo muddo dhan professor waxaan rabaa wixii taladaada ah iyo su-aal ah haddii shirkan fashil ku yimaado yaa iskale mas-uuliyadda waqtigan kala guurka ah la marayo haddii fashil meeshu ka yimaado ma dowladda federaalka mas-uuliyadda qaadaysa mise maamul goboleedyada iyo aragtidaada ah nooca doorashada dalka ka dhici karta 2 daqiiqo horta haddii fashil yimaado dowladda mas-uulka ugu weyn waxaa qaada madaxweyne Farmaajo qaadaya isagaa raba dalkan isku hayo isku celiil rabi waay laakiin haddana maamul goboleedyada kama barna ayagana tukooda waa inay mas-uulka qayb ay ku leeyihiin haddii fashil dhacayagana qayb ay ku leeyihiin taariikh xun bay Soomaaliya gelayaan waxaa anaga dad taariikhyahan ama taariikh baan qornaa buug baan ka qori doonaa حتى تاريخ هنا قلنا يسوت تنازله أو ملح سوي ماذا مدة الله بعد وحويان نوع الدور الشلة قلية أي كحرتها تم كحرجة ما أنت ماشي فريق ويش فريق أي كحرتها لكن ترى وحيتها أنا وحنقول لين لها إن هالسنة لو قدروا ومعنا ما دام قبل أنا أي شيء كتي هالسنة اللي قدر أي تري إن لو قدروا لكن كيا جفمنت كيا جفمنت اللي هجاجيو ومعناه وحوي halka sana si wadanka cod qof loo gaarsiin lahaa lagu dadaalo taas aan ku talin lahaa hadii taleega ay yeerayaan aad u maasantahay wasiirkii hore maaliyadda Xuseen Cabdi haddana falanqeeya arrimahan wax badan kala socday aragtidaadu maxay tahay hadii shirkan fashil ku yimaado mas'uuliyadda si qaadanayo mas'uuliyadda koobaad madaxweynaha qaadanaya isaga laga rabaa dastuurka federationka inuu isku hayo isaga laga rabaa marka laakiin hadii raggan kale mas'uuliyiintaana كمان بنانيا فيصل إنه قوة الدعي بنقونيا وحي إذا مهم سن أدي سياقاضي حكى صباحك أدود دلك أنتو فوضى قالوا أن كنا قلنا قرية أن كنا قلنا كل جيل لوس رسبان قلنا أنا مركب عن تاجنا نمان كان أن بدوينهم لربي إني استاجان وإني أجريمنت كجالان دلك المستقبل كيسون دلك الدجال كعلني sida ugu sahlan haduu madaxweynuhu leeyahay aniga hal sana waxaan geenayaa cod iyo qof xalamiyeeri warkeedan raacaya dawlad wadaaga hal sameeyay si kale la isku aaminaynin waa yahay marka xukuumad mucaaradku keenan ra'iisul wasaaraha sameeyo caretaker government aan ku gaadno inta kalsoonideeda lagu laakiin dawladdan in loogu daro hal sana ma qabtid hadii wax lagu darayo dawladdan dhisan oo dhameystiran oo waxyaabo badan ka midaysan yihiin dawladdan lama aaminayo halka ayada dalka keentay si la isku aamino hore loogu socdo hal lagu soo daro mucaaradku hal wada aad baad ma santahay labadina waa idin mahadcelinaya daawadayaal guud ahaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka gorfaynta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno shirka magaalada Dhuusamareeb ee ay leeyihiin hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijkan waxaa la qayb galayay Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya wax badan kala socday iyo Xuseen Cabdi Xalane oo laba jeer soo noqday wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya sidoo kalena ku jiray dowladda tan ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkan waa Yuusuf Cabdishraay ayaa la socodsiinayay farsamada waxa ka shaqeynay Maxamuud iyo Okaashe kaameradana waa Madela intaan mar kale kulmi doona barnaamijkan lamida annagoo isku duuban toddobaadka dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantihiin زاد ما تكذب وايد